waxaa maanta aad u fadhidaan aan u fadhinaa inaan shacabkeenna aan ugu bishaaro aan u sheegno inay dhammaatay xilligii dhiilada colaadda waxaan u gudubnay xilli muwaadin kasta oo Soomaaliyeed oo si xor ah uu ugu dhiiban doono codkiisa uuna dooran doono madaxda uu doonayo kaasi waa madaxweynihii dalka oo leh dalka Soomaaliyeed colaadii way ka dhamaatay waa lagu soo gudbay xilliga colaadda waxaa la gaaray xilli ay nabad jirto waxaan loo dareeri doonaa goobaha doorashada si dadku qof walbaba uu ugu codeeyo hogaamiyaha uu rabo inuu dalka taliyo waqtigan xadirka la joogo hadalkaasi ma hadal runtii u dhow maaha waa hadal runtii ka fog laakiin si kastaba madaxweynuhu wuxuu go'aansaday inuu dadka baarlamaankana ka hor sheego dadweynahana ugu gudbiyo media ma cayaar bay ka tahay ma waxay ka tahay maaragtay lama oga laakiin hadalkaasi maaha hadal la sheegi karo waqtigan isaga si kastaba inta aanan isweydiin su'aasha doorasho ma dhici kartaa 2021 walaan marka hore isweydiino Soomaaliya doorasho ma ka dhacday 2012 iyo 2016 iyo 17 2012 guddi baarlamaan ayaa soo xulay 135 oday dhaqameed 4 qabiil min 30 oday dhaqameed ayaa laga soo xulay 15 waxaa laga soo xulay beesha shanaad oday dhaqameedyada la soo xulay waxay doorteen xubno baarlamaan xubnaha baarlamaanna waxay soo xuleen waxaa sii kala xulay guddi oo baarlamaaniya guddiga waxay ka saareen meesha qaar ay diidanayeen international community-ga sidaana kuwii ku soo haray ayaa madaxweyne doortay sidaan madaxweynaha lagu dhisay waa 2012 waxaa la kala qaatay laaluush lacag ayaa la bixiyey fargelin baan ayaa jirtay iyo waxyaalo badan oo runtii aan aad u fiicnayn waa la socnaa media wuu qoray adduunka waxbuu ka qoray annaguna waa la soconay dadweynaha Soomaaliyeed oo kaliya ayaa runtii leh xuquuq wax lagu doorto marka laga hadlayo jamhuuriyadda Soomaaliya ayaga dhalad ah ayaga xaq u leh inay doortaan wax laakiin waa la duudsiyey xuquuqda doorasho ee ay xaq u leeyihiin dadka Soomaaliyeed waxaa xuquuqda la siiyey 135 oday dhaqameed ee wax soo doortay ayaa qaatay xuquuqdii doorasho ee dadku lahaayeen waxaa kaloo qaatay xuquuqdii doorasho ee dadku lahaayeen ee la siiyey bulshada caalamka oo iyaguna qofkay rabaan meesha ku dareeyey qofkay rabaan ka saariyey meesha sidaana dadkii Soomaaliyeed waxay noqdeen dad aan xaq lahayn ay wax ku xushaan wax ku doortaan haddaan u gudbo 2016 golayaasha deegaanada dowlad goboleedyada ayaa soo xulay 54 xubnood oo ay ugu yeereen golaha sare xubno kale aqalka hoose waxaa soo xulay ergo ka kooban 114,525 ergo xubin kasta ee ka mid ah baarlamaanka waxaa soo doortay 51 xubnood oo ka mid ah ergooyinka ka koobnaa 14,025 kontinii ergo ayaa soo kontii kooda ergo waxaa soo xulay 135 oday dhaqameed haddaba xubnihii baarlamaan ayaa soo doortay madaxweyne 2017 bishii Febraayo 8 sida doorashadii ka horreysay ee 2012 wadamo badan ayaa faraha kula jiray oo qofka ayaga ay rabeen lacag ku bixinay inuu soo baxo sidoo soo bixi lahaa laaluush badan ayaa la kala qaatay musuqmaasuq ayaa jiray faragelin shisheeyo ba'anaa jirtay meel yar oo kooban oo la manage gareyn kara shirka lagu qabtay oo xalan kulli dhexdiisa ku taal waa la wada socnaa doorashada arrintaana sida ay ku dhacday sidoo kale ergada wax dooranaysa oday dhaqameedyada iyo bulshada caalamka ayaa doorashadana xaquuq u yeeshay inay iyagu wax doortaan laakiin dadkii Soomaaliyeed waa loo diiday mar kale inay xuquuqdii xaq u lahaayeen iyagu yeeshaan haddaba haddii aan ka jawaabno su'aasha ah Soomaaliya doorasho ma ka dhacday 2012 iyo 2016 iyo 17 jawaabtu waa maya waa noo wada cadda dhamaantay inay jawaabtu maya tahay marka haddii ayan dhicin doorasho maxay ahaayeen wixii dhacay 2012
iyo 2016 waxaa dhacay xulasho ku salaysanayd musuq maasuq faragelin shisheeye iyo in dadweynaha Soomaaliyeed la duudsiiyo xuquuqda doorasho ee xaq u leeyihiin maadaama ay yihiin dhaladkii Jamhuuriyadda Soomaaliya inaan isxasuusinaa muhiim ah marka arrintan inta aanan u gudbin inay doorasho dhici karto 2021 haddaba haddii aan u soo noqdo su'aashii hore aan ahayd doorasho xalaal ah dadka Soomaaliyeed oo kaliya ay leeyihiin xuquuqda doorasho qof kasta oo ka mid ahna dhiiban karo codkiisa yani asoon waxba ka baqaynin run ahaantii ma dhici kartaa 2021 mar kale su'aasha intaanan ka jawaabin bal mar kale aan isweydiino su'aashan waxay tahay su'aasha muhiimka aan isweydiinana waxay tahay waa maxay doorasho maxay tahay doorasho haddaba su'aasha haddii aan ka jawaabno doorasho waa go'aan wadareed siyaasadeed oo ay bulsho ku doorato hoggaan dal hoggaan gobol hoggaan degmo ama hoggaan tuulo doorasho waxaa ka qayb qaata qof iyo xisbi xisbigu wuxuu soo bandhigaa fikir iyo qof la doorto dadkuna waxay kala doortaan xisbiyada ay kala doortaan iyo shakhsiyaadka ay soo bandhigeen ayagoo fiirinaya mabaadi'da iyo qorshaha iyo waxqabadkooda iyo waxa ay ballan qaadeen ayagoo fiirinaya ayay kala doortaan doorashada la yaqaanana sidaa ayay ku dhacdaa haddaba si ay doorasho u dhacdo waxaa laga maarmaan ah in la helo waxyaalo badan oo muhiim ah oo loo baahan inay dhacaan inta ay doorashadu dhicin marka maadaama shakhsi iyo xisbi siyaasadeed loo baahan inay doorasho galaan arrimahan soo socda inay hirgalaan marka hore waa arrin laga maarmaan ah marka koowaad xeer ay ku qeexan yihiin qaabkii ay doorashadu u dhici lahayd sidii ay u dhici lahayd iyo meeshii ay ka dhici lahayd waa in la helaa marka hore waa wax ugu sahlan oo la diyaarin karo midda kale waa in la helaa garasho iyo wacyi kordhin shacbi si ay dadku u ogaadaan waxa ay u codaynayaan iyo waxa ay ka codaynayaan iyo sidii ay xeerka doorashada u raaci lahaayeen oo ay ugu dhaqmi lahaayeen awaamiirta loo baahan yahay in la raaco si ay u dhacdo doorashada waxaa loo baahan yahay oo kale qarash lagu fuliyo doorashada si ay hawsha u kala socoto oo wax walbaba loo hirgelin laga walwalin qarash waxaa loo baahan xasilooni siyaasadeed oo suurtagelisa inay doorasho dhacdo oo aan la iskhilaafin waxaa kaloo loo baahan nabadgelyo laga hirgeliyo dalkoo dhan si uu qof walba u codeeyo isagoon u baqayn nafsadiisa in waxyeelo la soo gaarsiiyo waxaa kaloo muhiim ah hay-ad fulisa in la helo doorashada oo awood u leh karti u leh inay howshaa qabato kana soo baxdo doorashana ka hirgelisa jamhuuriyadoo dhan maaha meel gaara maaha xamar maaha meelaha nabadda aad jamhuuriyadoo dhan inay ka hirgeliso xisbiyo cayiman oo kala matala dana muhiim ah oo dadku leeyihiin dalkuna leeyahay iyo sharci xisbiyeed oo xisbiyada xakameeya na waa laga maarmaan haddaba arrimahan muhiimka ah iyo kuwo kaloo badan oo ay ugu horreysa nabadgelyada lagama hirgelin dalka xilligii doorashada loo balay waxaa ka haray bilo way dhammaan rabtaa marka suurtagal ma aha in bilaha haray lagu hirgeliyo arrimahan muhiimka ah ee loo baahan yahay in la hirgeliyo doorasho ka hor si ay doorasho u dhacdo haddaba iyadoo la fiirinayo xaqiiqda dhabta ah ee jirta ee aan hadda ka hadalnay haddii aan ka jawaabno su'aasha ah doorasho ma dhici kartaa 2021 jawaabtu waa maya doorasho ma dhici karto 2021 xaqiiqdan waxaa sii xaqiijiyey oo runtii inaysan dhici karin sii xaqiijiyey gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka warbixin ay siisay baarlamaanka 27 bishii lasoo dhaafay 2020 ayay ku sheegtay in baarlamaanku ansixiyey oo madaxweynuhu saxiixay nooca diiwaangelin biometric loo yaqaano oo dhici kara sida gudoomiyuhu warbixintiisa ku sheegay
haddii howlo badan oo loo baahan inay dhammaadaan ay dhammaadaan howlahaasoo ay ka mid yihiin in la soo iibiyo qalab lagu diiwaan geliyo dadka in qalabkaa la geeyo magaalooyinkii in ciidamada nabadgelyadu ay nabadgelyadii sugaan intaan qalabkaa meeshaa la geynin in qarash la helo qalabkaana weli lama soo gedin in xisbiyadii la diiwaan geliyo in codeeyaashii la diiwaan geliyo in maarata xisbiyadii ay bilaabaan kambeyn iyadoo nabadgelyadoodii la sugo meelihii kambeynka ka bilaabi lahayn ay hay-adaha nabad suguddu ay dejiyeen nabadgelyadeeda kadibna doorashadii ay dhacdo kadibna wixii doorashada kusoo baxaysaa lagu iclaamiyo waxyaalahaasay sheegtay inay dhacaan arrimaha ay sheegtana ma aha arrimo ku dhici kara runtii maaha 2 bil iyo 13 bil iyo sanad iyo wax ku dhici kara maaha arrimahaas waa arrimo 4 sano ugu yaraan u baahan waa shaqo weyn waaye logistics ay u baahan tahay waxay u baahan tahay abaabul weyn lacag badan hawl weyn waaye nabadgelyo adoon dagaal ku jirna loo baahan howlahaas inaa qabato oo xasilooni ku jira marka micnaheedu waxay tahay haddii la raaco sida ay waxyiin hadda 4 sano soo socda doorasho ma dhici karto maybe in la helo qaab xulasho iyo qaab kale wax lagu doorto laakiin lagama yaabo inay dhacdo doorasho xaq ah inay dhacdo lagama yaabo gudoomiyuhu marka wuxuu u caddeeyey baarlamaanka iyo ummadda Soomaaliyeed in aan howlahan kor ku xusan lagu dhameyn karin muddo yar wuxuu sheegay inaysan sahlinin howlahan sidaa daraaddeed wuxuu sheegay doorashada biometric ah inaysan ku dhici karin November 27 2020 taasoo ah waqtigii la rabay in baarlamaanka la doorto laakiin ay ku dhici karto muddo 13 bilood ah laga bilaabo bishii Luulyo 20keeda ilaa August 20keeda wuxuu kala soo bandhigay gudoomiyuhu nooc labaad oo doorasho oo ay ku magacawday diiwaangelin gacanta ah oo gacan lagu diiwaangeliyo taa oo lagu hirgelin karo 9 bilood muddo ka yar 13 bilood laga bilaabo Luulyo 20keeda ilaa Mars 20keeda xeerka kumeel gaarka ah sida ay sheegtay wuxuu dhigayaa in doorashooyinka heer qaran la qabto 4 sanaba hal mar bil ka hor dhamaadka muddada xilka baarlamaanka suurtagal ma aha in doorashada baarlamaanka lagu qabto waqtigeedii sida kor ku xusan oo sheegtay gudoomiyaha 13 bilood ma aha waqti lagu dhameyn karo howlaha kor ku xusan ee la rabo inay hirgalaan doorashada ka hor ma dhici karto waqti badan ayaa la lumiyey runtii 4 sano waa lagu qaban karay howlahan 4 sano waa la lumiyey waa lagu fashilmay in howl la qabto sida qorshaha dawladdu ku xusnayd ama sida qorshaha dawladdu ku xusnayd sharciga doorashooyinka in la asxiyo sanadkii 2018 ay dhigaysay ismaandhaaf siyaasadeed iyo nabadgelyo la'aan awgeed ay arrintaas u hirgeli weysay sharciga doorashooyinku wuxuu dhigayaa in gudoomiyaha madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka labada gole ee baarlamaanka hor keeno waqtiga iyo sida ay doorashadu u dhacayso aqalka sare qayb kama ahayn maaragtay dhegeysigii warbixinta gudoomiyuhu uu ka jeedinayay baarlamaanka waxaa jooga keliya aqalka hoose ismaandhaaf siyaasadeed ayaa jira sida muuqata ismaandhaafka siyaasadeedna waa kii markii horeba u diiday waqtigii loo baahnaa in lagu keeno 2018 welina wuu jiraa micnaheedu waxay tahay ismaandhaafka siyaasadeed wuu sii jiri doonaa haddaba ismaandhaafka siyaasadeed iyo nabadgelyo xumadu ma aha wax dhammaaday waa wax sii jiri doona sidaa daraaddeed 13 bilood iyo 9 bilood toona suurtagal ma aha suurtagal inay ku dhacayso doorasho laba mid inay dhacdo ay u badan tahay waqti kororsi in loo ogolaado dowladda ama in qaab xulasho oo kuwii la soo maray la mid ah in haddana dib loo sameeyo waana wax ay ku talinayaan xisbiyada iyo maaragtay mucaaradka labadaa talaabo midkood wax kama bedeli karo xaaladda dalku ku jiro maanta horeyna umad socodsiin karo waxna kama qaban karo xaaladda dalka haddii la qaado talaabada hore waxaa lagu noqon doonaa wixii la soo maray taa micnaheedu waa
in la lumiyo 4 sano oo kale sida loogu lumiyo dadka 4 sano ee la soo dhaafay iyo 4 sano ee ka horreysay haddii ay qaado talaabada labaad oo loo ogolaado waqti kororsi dowladda waxba ma soo kordhinayso maadaama 4 sano ee hore la siiyey oo 4 sano ay jirto wax qaban weysay aqliga saliimka wuxuu noo sheegayaa 4 sano kale loogu daro inaysan waxba ku qaban karin haddaba haddaan dadka Soomaaliyeed nahay waxyaalo badan ayaa loo baahan yahay inaan isweydiino wax badan ayaa qaldanaa doorashooyinkii hore ee aan ka soo hadalnay marka dib loo eego qoraaladii ay dadweynuhu isku dhaafsanayeen baraha bulshada iyo doodihii warbaahinta la isku weydaarsaday waxa mudan inaan xusno in dadweynaha soo ogaayeen in wax badan ka qaldanaayeen qaabka doorashooyinka loo abaabulay iyo sida ay u dhaceen 2012 iyo 2016 waxay sidoo kale ogaayeen inuu dalku diyaar u ahayn doorasho laakiin waxa lagu qanciyay dadweynaha lagu qanciyay inay qaladaadka jiray markaa oo ay ogaayeen inay ogolaadaan si dalka loogu dhiso dowlad waxa loo sheegay dowladdii lagu dhiso doorashooyinka qaldan inay 4 sano ee soo socota ka shaqayn doonto in ay dhacdo doorasho sax ah oo xalaal ah oo maaragtay waxba aysan ka qaldaneen rajo ayaa dadka lagu abuuray waxay aamineen hoggaankii beenta ku soo xero gala inuu run wax ku maamulo oo xaaladda wax ka bedelo waxay rajeynayeen inay dalka gaarsiiyaan heer ay dhici karto doorasho dadku doortaan hoggaankooda laakiin ayaan darro rajadii dadku qabeen ma noqon mid rumowda ee waxay noqotay rajo been ah waayo wixii qaladka lagu bilaabay gadaal waa laga sixi waayey wixii qaladka lagu bilaabay gadaal waa laga sixi waayey mar kale marka lama fili karo doorasho qalad lagu hirgeliyey in gadaal laga saxo doorasho kasta oo la qabanayo waa in loo qabto si sax ah si ay dowladdii ka dhalataa u noqoto mid si buuxda uga adeegi karta dalka iyo dadka Soomaaliyeed dowlad xun dowlad la'aan iyo dowlad fiicana badanaa dadka Soomaaliyeed isu barbar dhigaa dadkii Soomaaliyeed oo muddo ahaa dowlad la'aan cabsi ayaa lagu abuuray si ay u ogolaadaan wixii ka soo baxa doorashooyinkii qaldanaa ee hirgalay 2012 iyo 2016 iyo 2017 waxaa loo sheegay halista uga imaan karta inay dowlad la'aan sii ahaadaan inay tahay halis ka badan halista uga imaan karta dowlad kasta ee ka dhalata doorashooyinkii qaldanaa ee dalka laga hirgeliyey fiir caqliyadda si dadka looga xaday halkii wixii caqli ah ee la hayay ee dadku hayeen iyo siyaasiyiintu hayeen la isugu geyn lahaa sidii dalka loogu dhisi lahaa dowlad tayo leh oo fiican waxaa la isugu geeyay caqligii oo dhan sidii loo heli lahaa dowlad aan tayo lahayn oo xun waxaa la gaday fikirka ah dowlad xun in la dhiso inay tahay wax ka fiican in la sii ahaado dowlad la'aan waxaa kale oo la gaday fikirka ah in dowlad xun la dhisi karo si loo helo dowlad fiican yacni dowlad xunaa la dhisi karaa si dowlad fiican loo helo fikradahaasi uma shaqayn dadka Soomaaliyeed umana shaqayn doonaan runtii dalku markuu dowlad la'aan ahaa muddo badan inuu dowlad la'aan sii ahaado waxaa uga xun in dowlad been ah oo xun loo dhiso oo sanado badan oo xal loogu raadin lahaa laga lumiyo dadka taa ayaa ka daran dowlad waxaa loo samaystaa in ay u adeegto dalka iyo dadka kuwaasoo ah kuwii samaystay
haddii la dhiso dowlad aan waajibkaa gudan karin si kastaba xaaladdu ahaato waqtiga lagu dhisay dowladda iyo waqtiga ay jirtay labaduba waa waqti laga lumiyey dadka iyo dalka xaqiiqda waa inaan ogaanaa Soomaaliya dalkeenna muddo ku dhow 30 sano ayuu dowlad la'aan ahaa muddadaa badan ay dadka Soomaaliya dowlad la'aanta ahaayeen kadib hadda ayaa la rabaa in dowlad dib loogu dhiso dowladda ka hirgasha dalka Soomaaliyeed muddadaa badan ee dowlad la'aanta kadib waa inay noqotaa dowlad fiican oo sax ah oo la hubo inay u adeegi karto dalka iyo dadka Soomaaliyeed wax ku meel gaara iyo wax shortkada ma loo baahna dowlad xun iyo dowlad la'aan midna lama aqbali karo mana dadka Soomaaliyeed inay aqbalaan waa in la helaa dowladdii la rabay waxaa jira faragelin shisheeye haddaan taa ka gudbo wadamo shisheeye ayaa faraha kula jiray doorashooyinkii laga hirgeliyey dalka waa la soconaa dhammaanteen wax la aqbali kara ma aha inay dowlado shisheeye lacag ku bixiyaan doorashooyinka ka dhaca dalka oo ay qofka ay rabaan saartaan talada wax la aqbali kara ma aha ma la ogolaan karo dalka dadka iska leh ayay jiritaankooda lid ku tahay waxay kaloo lid ku tahay danaha dadka Soomaaliyeed iyo madax bannaanida dalka xaqa doorashada hoggaanka dowladda Soomaaliyeed waxa iska leh oo kaliya dadka Soomaaliyeed ma la ogolaan karo wadamo shisheeye inay waddanka yimaadaan waxna ka doortaan haddaba xaalku waa halkaas ayuu marayaa maxaa tala ah 4 sano oo luntay kadib waxay u muuqataa in 2021 mar kale la rabo in rajo been ah lagu abuuro dadka Soomaaliyeed si mar kale loo qabto doorasho qaldan oo lagu doorto dowlad aan tayo lahayn oo mar kale dadka ka lumisa 4 sano dalku wuxuu ku jiraa xaalad qalalaase waxaa ka jira colaad iyo nabadgelyo xumo ciidamo shisheeye ayaa jooga oo waardiyeynaya dowladdii dalka joogtay kala qaybsanaan ba'an ayaa jirta dowlad tayo leh kama jirto dalka oo hanan karta nabadgelyada iyo adeegga bulshada xal siyaasadeed lama hayo dhibaatooyin kaloo badanna way jiraan haddaba in doorasho la qabto iyadoo dalku ku jiro xaaladan iyada ah waxaa laga dhaxlayaa runtii waana arrin dhab ah waxaa laga dhaxlayaa marin habaabin waxaa laga dhaxlayaa waqti lumis xaaladan ba'an in dalka lagu sii hayo ayaa laga dhaxlayaa iyo in dadka indhahooda laga leexiyo waxyaalaha ka muhiimsan doorashada ee loo baahan yahay in la qabto marka hore waxaa ka mid wixii guddoomiyuhu soo tiriyey iyo wixii aan hore u soo sheegay marka hore waa in dalka laga saaro xaaladda qalalaasaha ah oo la soo celiyo nabadgelyo iyo xasilooni buuxa in la soo celiyo waay labadaa in la helo waa laga maarmaan kadib waa in la hirgeliyaa arrimaha kor ka xusan ee gogol xaarka u ah doorasho ka hirgasha dalka markaa kadib ayay suurtagal noqon kartaa inay dhacdo doorasho xalaal ah oo ay dadka Soomaaliyeed oo kaliya leeyihiin xuquuqda doorasho ee lagu dooranayo hoggaanka dalka hoggaaminaya qof kasta oo ka mid ahna dhiiban karaa codkiisa